walaala dawadan waa dawo loo yaqaano chloroquine ama hydroxychloroquine waxay ka mid tahay dawooyinka horey loogu isticmaali jiray in lagu daweeyo cudurka malaariyada ama loo yaqaano dadka qaar Soomaalidu yaqaanaan duumada. Dawadan gaar ahaan waxaa lagu isticmaalaa wadamada soo koraya ee ay ugu horeyso qaaradda Afrika. Waana dawo ay waxtarkeedu markeeda horeba laga shakisanaa oo farku godnayd oo la lahaa waxtarkeedu waa dawo hooseysa marka la barbar dhigo dawooyinka kale ee lagu daweeyo kaneecada cudurka ay keento ee malaariyada ama duumada loo yaqaano. Marka wadamo badan oo Afrika ah mar horeba waa laga joojiyay dawadan isticmaalkeeda ee dhanka malaariyada ama duumada. Marka dawadu walaal macluumaadkeeda waa taas. marka Dr. Cismaan maadaama uu Trump yiri dawadan waan isticmaalaa bal maxay tahay saameynta xun ay leedahay? walaal dawadan inuu markuu yiri Trump waxaan waan isticmaalaa waxa ka dhashay dhibaatooyin fara badan. Saameynta horta ugu horeysa waxa dhashay marin habaabin ku timid qaar ka mid ah khubaradii cudurka ku mashquulsanayd si ay dawo ama talaal ugu helaan cudurkan. Saameynkooda taas waxay noqotay saameyn dhib badan oo saameysay bahdii ku hawlanayd inay cudurka u helaan dawo ama talaal. Saameynta labaad ee ka dhalatay khalkhal ayaa ku yimid kaydkii dawada guud ee caalamka. waxa batay markaa dadkii dawada ka iibsanayay farmasiyada oo ayadoon cidiba dawadii u qorin wadamada qaar dawadan waa dawo laga iibsan karay farmasiyada marka dad dawadii qaadanaya ayaa batay. waxa kaloo dhashay in meelihii dawada ay taalay ee ahayd in loo isticmaalo in lagu daweeyo cudurka malaariyada ama duumada ay helitaankii dawada oo yaraaday maadaama ay dhalatay inay dad fara badan dawadii u isticmaalayaan inay ku daweeyaan ama iskaga daweeyaan cudurka coronavirus. waxa kaloo ka dhashay hadalka Trump oo ayadana wehelisa halkaas dadkii qaar baa inay dawadii iibsadaan waxay isku daweynayaan guriyahooda ayagoo jooga. taasina waxay keentay inay dadkii noloshooda qaar ka mid khatar weyn ay gasho maadaama uu qofku aaminsan yahay inay dawaduna daweyn karayso waxna ka tari karayso cudurka coronavirus-ka. ma jiraan wax cadeymo ah oo muujinaya in dawadan ay wax ka tarayso viruska corona? ilaa hadda walaalo lama hayo wax cadeyn ah oo muujinaya in ay dawada chloroquine-ta ay daweyn karto cudurka coronavirus-ka. dhanka kale tijaabooyin la sameeyay ayaaba muujinaya in dadka qaata dawada chloroquine-ta ay xagga geerida ay ka badan yihiinba dadka aan dawada qaadan. waa tijaabooyinka la sameeyay marka la isbarbar dhigay dad dawada qaata iyo qaar aan qaadan. marka ilaa imika lama hayo wax cadeyn ah oo muujinaysa in dawadaasi ay waxtar u leedahay ama ay daweyn karto cudurka coronavirus. waaxda caafimaadka ee wadanka Mareykanka ee CDC-da loo soo gaabiyo waxay sheegtay oo imika ay page-keediiba ka saartay daawooyinkii markii hore ay liistagaraysay ee ay ku sheegtay in lagu daweyn karayo cudurka coronavirus-ka. laakiin hadda dawada chloroquine-ka waa laga saaray dawooyinka lagula tacaalo cudurkan. marka hadiiba la dhaho dawadan malaariyada ama duumada loo isticmaalo waa ay shaqaynaysaa bal ka waran helitaankeeda Afrika? walaal dawadaas markeedu horeba qaaradda Afrika wadamo badan oo kamid ah ayaa joojiyay oo kumay jirin liistada loo isticmaalo in lagu daweeyo malaariyada sidaan hore kuugu sheegay. laakiin haddii hadalkaas Trump uu saameeyay oo ay muuqato in wadamo qaaradda Afrika ku dhaca ay saameyn ku yeelatay helitaankii dawada wuxuu noqonayaa mid aan la heli karin. wuxuu noqonayaa mid dhibaato ku keena meelihii markii horeba cudurka malaariyada loo isticmaali jiray in lagu daweeyo dawada chloroquine-ta. dawadii waxay noqonaysaa gabaabsi helitaankeedana wuu adkaanayaa. marka waxay ku noqonaysaa dhibaato meelihii markeedu horeba la ildarnaa inay helaan dawooyinka waxtarka leh ee lagu daweeyo malaariyada. haddii tii kaliya ay haysteen suuqeeda uu adkaado oo ay dad badan isticmaalaan oo kaydkeedii uu yaraado waxay ku keenaysaa dhibaato aan qurux badnayn oo dhanka caafimaadkana saameyn ku yeelan karaysa oo qofkii u baahnaa dawada in lagu daweeyo ayaa waxa ka qaadanaya qof kale oo iskaga shakisan ama uu hayaba coronavirus.